wasiirka qorshaynta dowladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan haddana ka mid ah musharaxiinta golaha shacabka ee kuraastoodu taalo magaalada Boosaaso ee Puntland kana mid ah siyaasiyiin shalay walaac ka muujiyay qaabka doorashadaasi loo qabanayo iyo halka lagu qabanayo ayaa sheegay in qaabka ay wax u socdaan hadda uu yahay hab khilaafsan habraacyadii lagu heshiiyey ee doorashada. Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in isaga iyo siyaasiyiinta kale ay doonayaan in doorashada loo madax banneeyo qabaa'ilka iskale kuraasta isaga oo ka digay faragelinta habraacyada doorashada ee lagu heshiiyey. Wasiir Jamaal ayaa waxa uu u waramay wariye Maxamed Xasan Dhalo oo Boosaaso kula kulmay. Horta warqad inta ku qoran way hadalka muhiimadiisu, laakiin warqadan soo saarnay waxay qayb ka tahay process aan ku xaqiijinayno in doorasho cadaalad ah ka dhacdo magaalada. processkaas oo dhowr waji yeelanaya, dhowrka waji ay ka mid ahayd baaqan talaabooyin kala qaadanayna waa jiraan oo hubinayno in si cadaalad ah oo dimuqraadiyada dadku ogol yihiin doorashadan ku dhacdo. Anjujub iyo dhac iyo boob iyo agajugleyn iyo in beelaha madaxa la sugaliyo aan dhicin qayb ka mid ahayd. Marka inta kalena insha Allah maalmaha soo socda la arki doona deelan. iyadoo aan ognahay in wali shahaadooyinka sharciinta la bixin maxaa keenay idinku eedayn soo jeedisan eedayn buu ahaba oo xaqiiqad jirta. Annagu waxaan ka hadalay tusaale ahaan goobta doorashada ka dhacayso goob doorashada ka dhacayso airportka laga dhisaya tendadaas ciidanka ilaalinaya ciidan maaha Soomaali dawlad maxaa la yiraahdaa ciidankii Soomaalida loogu talagalay aliyaan doorashooyinka ama booliiska Soomaaliyeed ama ciidan kale aan heshiis ku hayn ama Soomaali kale waa ciidan PMPF oo meel kale laga fangarayo. aan ognahay xaqiiqadiisa sida lagu sameeyay cid lacagta bixisa iyo shaqadu qabto. Marka habraaci oo dhan waa ka hor imaanaysa meel dadku tagi karaan maaha, meel dadka wada furan maaha, meel si cadaalad loogu tagi karaan maaha. Marka qodobkaas aan xoog saarnay waana ka sii hadlaynaa dadka gacanta ku hayaan oo kala hadlaynaa kuwa lacagta ku bixiya mashruucan dhan maamulan oo kala hadlaynaa cid kasta oo helaan oo kala hadlaynaa waana sii wadana meelaha ay muhiimka in la gaarsiiyo dhan waa gaarsiin gudal gudihiisa noqon lahayd dibadda noqon lahayd. Waxyaalaha ay ka mid tahay ka hadalay talaabooyinka qaadan isku xiga ama cases-kan aan rabno inaanu soo bandhigno mustaqbalka haddii saa lagu sii socdo. waayahay goobta doorashadu ka dhacayso iyo amniga doorashada labadaba waxaa ka mas'uula maamul goboleedka doorashada qabanaya. Ma kala hadasheen iyaga ma la fariisateen waxa aad qabtaan? maxaaba lagala fariistaaba hadda waa ku sii dhaqaaqeen oo meeshii dhisayaan ciidanka ilaalina xataa ciidan ay maamul goboleedku u madax banaan yihiin maaha. Marka talaabada qaadeen baba khaldanba cid halka joogta oo arinta qaabilsan oo guddiga amniga haday noqon lahayd qaranka doorashooyinka haday noqon lahayd habraaci lagu heshiiyay amniga doorashada haday noqon lahayd mid ka soo khilaafsan. Marka anaga shaqadeedan qabsanaynaa dokumentiyadan diyaarsanaynaa qoraalladaan diyaarsanaynaa talaabooyinka qaadan isku xijsanaynaa. Arrintan ma arin iska sahlan oo inta meel teenda ka dhisto oo xoro sameeynaa iska qaadanay. Arrintan waxa ay keenaysaa cawaaqib xumo fog dadka ku shaqada leh faraha ku haya iyo dadka kale ee garab ku siinaa intaba ay ku keeni karto mustaqbalka haddii saa ku sii wadaan. waxaa jira waxa ku celcelisay talaabooyin baan qaadayna. maxay yihiin talaabooyinka aad qaadaysaan? ma waxa idinka qalaasamaya rabtaan in ardeen? anagu qalaasama oran qaadayna waxaan ku yiri waxaan diyaarinaynaa sidaan ku xaqiijin lahayn meesha doorasho cadaalad ka dhacdo. sidee lagu doorashada cadaaladana wajiyo badan bay ku iman kartaa. marna anaga qorshaano uma jirto inaan qalaas iyo dhiig Soomaaliyeed daadino, laakiin waxaan rabnaa si kasta oo ay ku suurtagelayso in doorashadaas si cadaalad ugu dhacdo dadka Soomaaliyeedna si madax banaan isu doortaan qabayladaasna aan godob kala gelin qol walbana ay madax banaanta doorashada inay u dhacdo iyadoo cidna loo caawjugleyn cidna la dhacayn cidna laga hor istaagin. waxyaalahan ay qorsheysanay wadaan dadka qaarkiina waa ognahay. marka waxaan ka hortagi lahayn oo nidaamsan ayaan gacanta ku haynaa ka shaqeynayna. doorashada iyo kuraastan dhacaysa iyo dadka ku tartamaya qabaa'il baa leh. qabaa'ilkii waa ku dhex jirteen miyaa ka aamin baxdeen? maya qabaa'ilkan ma rabnaaba in loo madax banaaneeyo. qabiilka iyaga kursigooda leh kuraastooda ninkay doonaan hasiyan faraha in looga qaado oqaashooda arrimaha bulshada ururada bulshada isdoortaan ergooyinka boqolkooda ergo loogu talagalay waa ku qoran tahay habraaci ugu dambeeyay inaan dawlad goboleedku inaan faraha la gelin. marka waxa teendooyinka loogu dhisanayo faraha loola galay ciidamada loogu keenayo taasan ka hortagin. faraha looga qaado meelihii lagu heshay jaamacadii hal la geeyo meel dhex hal la geeyo iyagu ha isdoortaan qof alaale qof kalsoon la soo baxay. laakiin in wax la isku qorqorto danta reerkana maaha kursiga leh tan qarankana maaha tan Soomaalinimadana maaha. marka arrimahaasaan ka digaynaa in lagu sii socdo lagu fogaado.
guddiga doorashooyinka fit iyo siita kala sarreeya ayaa doorashadan gacanta ku haya iyaga kalsoonidooda miyaa lumiseen waa arkaynaa barorta waxay soo bandhigaan laakiin sida hadda wax ku socdaan waxaan ka digaynaa in wax qaldamaan meelo badan wax ka socda waa aragta wax ka dhacay sida wax loo maamulo oo loo jeedaa Soomaalidu waa ka dheregsan tahay barosku ku socdo annaga marka waxaan ka digaynaa in arrintu ay sidaa ku sii fogaato oo saa lagu kala dhinto hawshan waxaan rabnaa in guddigu ay habraaca fiiriyaan doorasho si loogu talagal u qabtaan inaan loo digteed garoon loo yeerin waxaan sharci ahayn meesha ku qornaan wasiirka qorsheynta dowladda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo u waramayay wariye Maxamed Xasan Dhalo ayuu kaasi ahaa qaar kamid ah dhageystayaasha BBC-da ayaa aragtidooda qodobkaasi ka soo dhiibtay xamda muuse saalax oo joogta baran waxay leedahay waa soo dhaweynaya hadalka ka soo yaray musharaxiinta deegaan doorashadoodu tahay magaalada Boosaaso waa in la isku dayaa musharaxiinta iyo ergada soo dooranaysa faragelintana haddii ay sii socoto waxa ay keeni kartaa ay leedahay in qalalaas uu markaasi hareeyo kuraasta halkaasi taala Falastiin Khaliif Yuusuf oo joogta Muqdisho ina waxay leedahay musharaxiinta deegaan doorashadoodu tahay magaalada Boosaaso oo ka digay faragelin lagu sameeyo doorashada halka ka dhacaysa Boosaaso weeyaane waxay muujinaysaa in ay yar tahay kalsoonida qabsoomida doorashada iyo in ay u dhacdo xor iyo xalaal way mahadsan yihiin qaar kamid ah dhageystayaasha BBC-da oo halka aragtidooda noogu soo diray welina halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba